calaamadaha lagu garto gaaska xad dhaafka ah. Inta badan gaaska wuxuu leeyahay calaamado. Calaamadahan aan hadda ka hadlayno waa calaamadaha lagu garto gaaska xad dhaafka ah. Abdominal bloating ama waxa loo yaqaano dibriyada. Marka gaaska ku bato calooshaada, qofku wuxuu dareemayaa barar aad u muuqda. Bararkan ama dibriyadan wuxuu keenayaa dareen culus oo qofka ka dhigaya mid aan raaxo dareemeynin, gaar ahaan marka uu cuntada cuno. Frequent burping and nausea. Qofka inta badan gaaska qaba wuxuu dareemayaa daaco, taasoo ka dhalanaysa inta badan waxay ka dhalataa daacadaas hawo qofka galaysay inta uu wax cunayo. Tusaale, dadka inta badan ku sheekaya cuntada ama hadla ayayna ku badan tahay. Mararka qaar gaasku wuxuu sababi karaa matag ama lalabo, gaar ahaan haddii aad qabto xanuunada mindhicrada. Abdominal pain. Gaasku sidoo kale wuxuu yeelan karaa calool xanuun mararka qaar xad dhaaf ah. Xanuunkani wuxuu inta badan ka dhashaa cadaadis uu gaasku ku sameeyo mindhicrada, waxaana uu sii xoogeysan karaa xanuunkaasi marka infection mindhicrada aad leedahay. Stomach rumbling ama gargling sounds. Marka calooshu uu gaasku ku bato, calooshu waxay sameynaysaa dhawaaqyo sida qururo ama dhugdhug ama dhagdhag sida u taqaanaba, taasoo keenaysa in dhaqdhaqaaqyada mindhicradu ay siyaadaan. Tani inta badan waxay dhacdaa marka gaasku uu ku bato mindhicrada qaybteeda hoose. Diarrhea and constipation. Mararka qaar gaasku wuxuu keeni karaa shuban ama calool istaag, taasoo inta badan ku xiran dheefshiidka. Mindhicrada marka ay si xad dhaaf ah u shaqeeyaan waxa uu keenayaa shuban. Marka mindhicradu aysan si xad dhaaf u shaqeynayninna waxa uu keenayaa in calooshu ay ku fadhido. Feeling of a life full even after eating small. Inta badan haddii aad gaas ka qabto waxaad dareemi doontaa xitaa haddii aad cunto yar cuntay inaad dheragto. Dibriyo. Haddii marka xaaladahan aad isku aragto, waxaa gaaska ugu badan yahay mid halis ah. Heartburn or acid reflux. Marka qaar gaaska badanaa wuxuu keenaa dareen gubasho ah ama in aashito ama wax ay kugu soo laabtaan, gaar ahaan dhuunta inay wax kaaga soo laabtaan. Tanina waxay si gaar ah uga sii dartaa qofka marka uu cunto cuno kadibna uu seexdo, ama cuntada uu cunayo ay noqoto cunto dhanaan ama dhanaanku ku badan yahay ama basbaasku ku badan yahay. Shortness of breath. Xaaladaha khatarta ah ee dadku aysan dareensaneyn waxaa kamid ah gaaskuna uu leeyahay in hawadii ama naqaskii ay kugu yaraato. Haddii aad dareento cadaadis dhanka caloosha qaybteeda sare ah ilaa iyo xabadka, haddii aad dareento in neeftu ay ku dhibayso, haddii aad dareento oodimo, gaaskaagu waa mid khatar ah. Laf xanuun iyo daal, body aches and fatigue. Inkastoo aysan dad badani dareemin, haddana gaasku wuxuu keeni karaa muruq xanuun iyo daal badan, sababtoo ah gaasku inta badan wuxuu la shaqeeyaa habdhiska jirka intiisa kale. Excessive full smelling flatness. Mid ka mid ah calaamadaha ugu cadcad ee gaaska xad dhaafka ah waa gaas ama ur badan inaad dareento, sida neefta inay kusoo urto. Like share muuqaalka.